بسم الله الرحمن الرحيم ثم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج كيني حاسب نفسك قبل أن تحاسب عليها نفترض حسابي انت على حساب رمضان وحي مريسا 10 عشاء 20 عشاء نجيدا عفوا 10 كي قدام بيا يا هري oo caaw ka waa intii badnayd way tagtay intii yareed ayaa hadhay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weydiisanayaa kuwa raxmada iyo dambi dhaafka ilaahay subhanahu wa ta'ala kala kulmo ramadaanka laga aqbalo in ilaahay subhanahu wa ta'ala inaga dhigo insha Allah caaw waxaan rajaynaynaa insha Allah tobanka ugu dambeeyo ay tahay laylatul qadrki in ilaahay subhanahu wa ta'ala inala kulansiiyo laylatul qadrigu waa habeen aad iyo aad u weyn ilaahay subhanahu wa ta'ala uu sharfay قرآن كيسنا وكشة إلهي سبحانه وتعالى وكت المام إلهي ليلة القدر خير من 1000 شهر همينك ليلة القدر وحي كخير بلانتهي كن بالغد عبادتي عاد قبصان لهيد أي معناه انتهي إلهي سبحانه وتعالى آيات كالوحو كله إنا أنزلناه في ليلة مباركة قرآن كي أنك سودة جنين هابين مقرنا سايي barakaysan ilaahay subhanahu wa ta'ala habeenkaas aad ayuu karaamiyay quraanka meel badan baa ilaahay subhanahu wa ta'ala kaga sheegay rasuulku sallallahu alayhi wa sallam waxa uu sheegay habeenkaas inay tahay tobanka ugu dambeeya ay ramadaan wa kaana yactani biha sallallahu alayhi wa sallam rasuulkuna magaranaysa aad ayuu ilaalin jiray uguna dadaal jiray rasuulku alayhi salatu wa salaam tobanka ugu dambeeya aad ayuu istaagi jiray salaada aad ayuu tukan jiray wuuna ku dadaal jiray wuxuuna kula dardaarmi jiray asxaabtiisa radiyallahu anhuma in ay ka raadiyaan tobanka ugu dambaysa habeenka barakaysan oo walibana khaasatan ay ka raadiyaan habeenada tiradu ay tahay isdhaafka sida kowda iyo magaranaysaa saddexda iyo magaranaysaa todobada markay tahay 27 oo kale marka ay tahay 23 markay tahay tirada isdhaaf inay ka raadiyaan ayuu rasuulku kaleey salaatu wasalaam kula dardaarmi jiray asxaabtiisa sida darteed rasuulku habeenka magaranaysaa tirada isdhaafka tahay ee tobanka ugu dambeeya reerkiisa oo dhan uu toosin jiray wuxuuna kula dardaarmi jiray rasuulku kaleey salaatu wasalaam in ay tukadaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ay magaranaysaa u istaagaan salaad badan ay tukadaan oo quraan badan ay akhriyaan habeenkan hadii ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nala kulansiiyo waxa nafteedii naftiina ma kula dardaarmayaa in aynu quraanka aad iyo aad u akhrino ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay xadiisul qudsi magaranaysaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ku tilmaamayo uu leeyahay man shaghalahu quraanu an dhikri wa mas'alati quraanku qofka uu ka mashquuliyo dhigrigayga aniga xuskayga iyo inuu aniga wax weydiisto oo bariyo aqdaytu afdal ma aqdi saa'ilin waxa aan siiyaa waxa magaranaysaa kuwa ay weydiisanaya wax ka wanaagsan ayaan siiyaa ilaahay subhanahu wa ta'ala leeyahay marka walaalayaal habeenkan hadii ilaahay subhanahu wa ta'ala ina karansiyo waa in aad ugu dadaalnaa salaad fara badan sunnayaal badan iyo quraan akhris fara badan marka walaalayaal habeenkan habeen khaas oo ma aha dad khaasa dadka madmadow khaas uma aha dadka cadcad khaas uma aha wadan khaas uma aha lil caalamiin way umada ilaahay subhanahu wa ta'ala waa abuuray oo dhan baana ilaahay subhanahu wa ta'ala magaranaysa ugu talagalay sababaha la inooga qariyana sababahaas ayaa kamid ah in qof walba magaranaysa intuu iska seexdo ama magaranaysa uu hawlihiisa kale iska raacdo habeenka la sheegay uu magaranaysa uu salaada ku dadaalo marka waxa lagu talagalay tobankan ugu dambeeyay inaan guntiga dhishiska xirno sida rasuulku sallallahu alayhi salatu wasalaam aynu raadino aan ilaahay subhanahu wa ta'ala bariyadiisana aad u barino maxaan ku ducaysanaynaa haddaba Aisha waxay leedahay rasuulka alayhi salatu wasalaam ayaan weydiiyay waxa ku rasuul Allah habeenka laylatul qadriga hadii aan la kulmo maxaan ilaahay subhanahu wa ta'ala weydiistaa wuxuu ku yiri Aisha waxa tiraahdaa isagoo aad u jecel Aisha ummahatul muuminiin kamid ahayd oo wada garanaysan qofku ma garanaysan uu jeclaa rasuulku inay ahayd dumarkiisa ayuu rasuulku alayhi salatu wasalaam wuxuu ku leeyahay Aisha ilaahay waxaad weydiistaa ku tiraahdaa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni du'ada aad badno du'ada aad badii ku leeyahay inuu du'ada aynu aad badino dadkana aynu iska wada saamaxno
إن شاء الله نفتي وحن قدر دارميا إلهي سبحانه وتعالى إنه رمضان تنجا أقبله رمضان عافمت قبل إنه قارسيو أين أسسوا دعينا إن شاء الله دنبجنا يكي والدينتين يدنبج مسلمين تا أنت دنبج مسلمين تا أنت لمتي أنت النار إلهي سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة إن إلهي سبحانه وتعالى ودنبج وضرافه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.